السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن waa Dansan TV. daawadayaal caawa waxaynu wadnaa barnaamij xasaasi ah wadani ah isla markaasna ku saleysan taariikhdii Soomaaliyeed iyo waliba maalinta dad badan Soomaaliyeed isweydiiyaan ee ah 1 Luulyo. waxaan rabaa hordhac yar inaan idin sameeyo aan kaga sheekeeyo 1 Luulyo waxay tahay. 1 Luulyo waxay tahay maalintii ay midoobeen gobolada Waqooyi iyo Koonfureed. dad badan oo Soomaaliyeed waxa laga yaabaa inaysan ogeyn macnaha ay xambaarsan tahay maalintan ayada ah. maalintan ayada ah waa maalin dad badan oo soo halgameen dhiigooda iyo dhacaankooda iyo maalkooda ay u soo bixiyeen isla markaasna ay galeen midowga Waqooyi iyo Koonfur. haddaba haddii aad tahay muwaadin Soomaaliyeed maxaad ka ogtahay dadka u soo halgamay ummadda Soomaaliyeed iyo goortii ay soo bilowmatay? waxaan rabaa xusuus yar inaan dib ku celiyo markii Allah naxariistay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu ka soo degay dekada Berbera gumeystii haystay Ingiriiska. kelmadii ugu horeysay ee la weydiiyay waxay ahayd in canshuur la weydiiyay. wuxuu ku jawaabayna waxay ahayd adiga canshuurtiya ka qaaday. dagaalkii halka lagula galay wuu socday waxaana kamid ahaa Talyaaniga iyo Ingiriiska. si kastaba ahaatee guushii maalintaas ayada ahayd la eegleelay waxa ka soo wareegtay 60 sano ay ka soo wareegtay. haddaba 60 sano dad badan ee Soomaaliyeed waliba yaqaan wadannimada iyo waxay tahay iyo wadajirka way ku farxaan maalinta ayada wayna qiimeeyaan wayna qadariyaan korna way u qaadaan. waxaad moodaa burburkii Soomaaliya soo gaaray kadib dad badan oo Soomaaliyeed inay maalintan hoos u dhigaan maalmo kale oo calamo ay sameysteen ay ka hormariyaan. haddaba waxaan leeyahay ku baraarujinayaa shacabka Soomaaliyeed ee meel walba iga daawanaya Soomaali waa mid waa hal shakhsi waa hal calanka shanta xidig ee cad buluuga xidigtaas shanta geesood ah ayaa meesha Soomaali wada deeqa. marka Soomaali sida waxa loo baahan yahay in midowga 1 Luulyo kor loo qaado meel walba aad joogtiin la karaameeyo la ciseeyo korna loo qaado. haddaba anigoo ah ku hadlaya magaca mujtamaca Soomaaliyeed gaar ahaan TV-ga Dansan ku hadlaya waxaan ka dhaliilsanaynaa waliba ku sugan wadanka Denmark. waxaan cudur daaraynaa midaan ayada ah xafladeen maalin qaban waxaan u qabanayna waxay ahayd cudurrada corona iyo fasax la'aan awgeed. marka waxaan la haboonaatay inaan hawada u marino shacabkeena Soomaaliyeed aan ku soo gudbin doono taariikh yar gogoos ah barnaamijkan lagu soo saadin doono. marka waxaan leeyahay waxaan kala yidi doonaa xaggaas online-ka aan ku weyneyn doonaa maalintan ayada ah aniga ku hadlay magaca Dansan TV isla markaasna magaca ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay hambaliyo ilaahay ummadda Soomaaliyeed soo hanuuniyo kor ha u keeno maalintan ayadana waxaan rajeynayaa ubadkeena wadkooda inay kor u qaadi doonaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.